xog qaldan oo laga qabtay iyo suurtagal ka dhigay gabadhaniti in mustaqbalkeeda gebi ahaanba uu baaba'o iyadoo qoyskeeda xitaa biil u soo dirto iskana dhigto shaqo wanaagsan in ay hayso dhanka kale waa mid markaa ku suntaneyd in ay ahayd gabar jirkeeda ka ganacsato kuna darso arrintaniti waxaa baddan dhex geliyey gabdho ay asxaab ahaayeen oo isgaranayeen magaalo kale ayay ku noolaayeen ayadoo waalidkeedii la nooleed gabar waxbaratay ahayd heerkeedii waxbarashada marka ay soo dhamaysay waxa ay la xiriirtay gabdhahaasiiti oo magaalo kale ku noolaa waxa ay tiri waan idin imaanaa shaqo yaan rabaa halkaasiiti inaad igala baadi goobtaan waxa ay ku dheheen noo imow markii ay u tagtayna waxa intii shaqada ay la baadigoobayeen ay hoosta ka geliyeen waxyaabo foolxuma ay samaynayeen heer gabadhanaytina caadi looga dhigo in jirkeeda ay ka ganacsato foolxumadaasna maadaama ay u dulqaadan kari weysay gabadhan waxa ay asxaabteedii ku tiri anigu ma doonayo in waxaan adinka aad ku sugantihiin aan idinkula sii sugnaado magaaladeedii yaan dib isaga laabanayaa oo qoyskeygii yaa noloshoodii aan dib ugu laabanaya waxaana asxaabtii durbadiiba ay ku dhaheen haddii aad laabato dhammaan xogaha foosha xun ee aan kaa hayno in jirkaaga aad ka ganacsanaysay yaan waalidka iyo dadkii xaafadda kugu yaqaano idil aan u gudbinaynaa waanad ku qasban tahay in halkan aad nagula noolaato jirkaagana aad ka ganacsato gabadhanna ayadoo fiirinaysa mustaqbalkeeda dambe wax ay ka aamini karaan dadka iyada yaqaaniya qoyskeeda waxa ay doorbiday in noloshaanayti foosha xun ay ku sii sugnaato qisada muuqaalkan yaa wax walba ku faahfaahin doonaa balse tan gudgelin muuqaalka markana wax ka codsanayn muuqaalkanayti allay garaysiina sheer garayso haddii aad ka mid yihiin bahweynta nugu xiran aan nugu soo biirto waad ku maadsantaa waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aanu gudagalno muuqaalkeena maanta qisadan waxay dhacday sanadii 2022 waxaanay ka dhacday waddanka city India gaar ahaan gobol lagu magacaabo Karnataka halka city waxaa ku noolaayay islaantan haweeneydan qisadeena ee qosayso lagu magacaabo Jantarkalla haddii yaraanteeda aan fiirino waxa iska ahayd gabar qoyskeedu si wanaagsan ay u soo barbaariyeen wax ay bareen nolol wanaagsan ku nooleed ilaa heer ay soo qaangaartay waxbarashadan meel wanaagsan ay ka gaartay qof weyn ay noqotay waxbarashadana ay dhammaysay si hayaanka nolosheeda ay u sii hormariso qoyskeedana ay kaalinta kaga aadan waalidkeed garab ay u noqoto waxa ay noqotay in haweeneydaniti ay shaqo raadin ay bilowdo meelo kala duwanna shaqo ay ka baadi goobto magaalada ay ku nooleed way ku adkaatay xaaladda jawaab degdeg in ay hesho oo shaqada xaggeeda ah waxaana ay noqotay in xitaa ay la xiriirto gabdho yaraanteedii ay isgaranayeen oo asxaab ay ahaayeen laakiin magaalo kale ku noolay xilligaasiti waa in la xiriirto waxay ku tiri magaalada aad ku nooshiin ka warama ma idin imaan karaa halkaasiti shaqo ma igala raadinaysaan waxaana gabdhahaasiti ay ku dhaheen noo imow magaaladaniti waa aan kaala raadinaynaa shaqo halkana marka aa imaado waxa aan rajaynaynaba shaqo markaasiti in sidaasiti aad ku heli karto gabadhanna waxa marka ay suuraysanaysay in shaqo ay hesho magaalada city kale marka ay tagto oo nolosheedu isbeddel ay ku imaan karto safar iyo qorshaysatay oo waalidkeed waxa ay ku tiri waa aan baxaya magaalada city kale yaan aadaa gabdhaha city asxaabta aan ahaan ku degana halka city yaan kula noolaana inta shaqo aan ka helayo qof isbixinaya noqon karo waalidkeed waa ay soo sagootiyeen magaalo kale oo lagu magacaabo Mysore iyo imaaday oo gabdhahaniti asxaabta la ah gabadhaniti ay ku noolaayeen waxa ay ka qariyeen gabdhahaasiti asxaabta la aha gabadhanna waxa ay ahayd in gabdhahaasiti ay ahaayeen gabdho ku shaqaystaba kuwa jirkooda ka ganacsada oo howlahaasiti foosha xunba shaqo ay u tahay waa ay soo dhaweeyeen waxaana ay ku dhaheen shaqada waa aan kula raadinaynaa halkaasiti gurigii la kula nooleed waxaa markaa shaqada haddii arrimahaasiti ay kala hadashay ay noqotay markii dambeba in ay ku qalqaaliyaan oo ay dhahaan shaqadan anaga aan haynaba oo aad nala soo geli kartaa waa ay fududahay shaqa hore ka bilaabi karto waaye muddoyay ku celceliyeen oo hawshii waxa marka ay noqotay markii dambo in si uun ay u qaadsiiyaan waayo asxaabtadu sida ay yihiin saameyn ay kugu la noolaan karaan oo noloshaada waa ay saameyn karaan markii aad goob ku wada nooshihiin waxa marka ay noqotay in gabadhan jantarkalla ay noqoto in marar ay qaladaad ku dhacday maadaama arrimaha sitina ay la foolxumaadeenna waxa ay tiri shaqadina waqtigii lagu heli karay ay dheeraatay waxa ay tiri gabadhan jantarkalla gabadhii asxaabta ay la ahay waxay ku tiri anigu waan baxayaa
magaaladeedii aan ku laabanaya qoyskaygii dib inaan ula midoobo yaan rabaa waxaanay tiri maku sii jiri karo foosha xun asxaabtii maadaama ay ogaatay waxa ay ku nool yihiin waxa marka ay istuseen oo ay isdhaheen haddii gabadhan ay baxdo magaaladii ay adinka degneedeen oo marka hore aad kasoo tagteen oo iyadana halkaasiiti ay ku laabato waxaa marka ay noqon kartaa in magac xun ay idinka gudbiso maadaama hadda badda ay idinkula jirtona waxa ay istuseen oo isdhaheen waa in markaa aan rikaataynaa waxaana lagu dhahay gabadhan haddii aad laabato oo aad ku laabato magaaladii waxa aan ceebeen doonaa sharaftaada waxaana sheegi doonaa waxyaabaha halkaniiti aad nagula nooleed in khaladaad aad samaysay oo aadba ku shaqaysanaysay yaan waalidka iyo dadka asxaabta adiga aan ku garanay yaan u sheegi doonaa waxaa ku qasban tahay in halkaniiti aad nagula noolaato shaqana kanba shaqo ka dhigo oo jirkaaga ka ganacso sidaasaytii gabdhii asxaabta la ahaa gabadhaniiti ay ku dhaheen gabadhu waa ay fikirtay waa ay marka waxa ay noqotay xaaladeeda in ay noqoto in laba ay kala doorato in arrintaniiti foosha xun ay kusii sugnaato iyo in ay go'aansato in magaaladeedii ay ku laabato gabdhahan asxaabta la ahna wixii ay sheegayaan dhagaha in ay ka xirato waa ay fikirtay waxaana xal u soo baxay in arrintaniiti ay ku sugnaato sababta iyadoo ceebaysanaysa gabadhan oo islahayd haddii waalidkaa loo sheego gabadhiinnii markii halkaniiti imid waa isbedeshay jirkeedii ka ganacsatay si awlaasiitii bilowday dadka asxaabtii ku garanayana sidaasiitii kale loogu waramo sidee markaa mustaqbalkaaga sharaf ahaan lagu arki karaa gabadhan ayadoo arrinkaasiiti suuraysanayso waxa ay noqotay in ay ku qasbanaato oo istusto oo istiraado arrintan waxaa kuu roon in halkaniiti aad iskaga sugnaato sidaaniiti aad iskaga shaqaysato cidna kuma ogo waalidkeed markay ila soo xiriiraan waxa ay ku tiraahdaa maadaama biilna ay u jiri jirtay oo waxyaaba markaa ay ka hesho shaqooyinkaniiti foosha xun waalidkeeda waxa uga diri jirtay waxa markaa ay ku tiri hooyo aniga ama aabo shaqo wanaagsan yaan helay waa aan shaqaystaa sidaasaytiyaan idinku biilaayay ku tiri shaqadaniitina si toosay markaba u gashay marka hore waxa markaa iskeed marmaryay wax ka qaadan jirtay laakiin markaan dambe maadaama ay ku qasbanaatay oo xaalad sida iyada marka ay istusay inay ku qasban tahay ay tahay waxa ay noqotay in si toosaba ay ugu shaqaysato waalidkeed waxa ay u diri jirtay biil iyadoo dhahaysa aabo iyo hooyo aniga shaqo wanaagsan yaan haystaa lacagta aan idiin soo dirana shaqadaasiiti wanaagsan mushaarka aan ka soo qaata waaye laakiin waalidkeed ma ogeen waxaanayti foosha xun ay ku dhex jirto gabadhanaytina waxaa markaa ay noqotay mid kalaabyada ka howlgasha oo sidaasaytii mustaqbalkeedu uu isku bedelay waayo araggeedii adduunyo ee shaqo raadinta ahayna waxa ay noqotay in ay isu bedesho shaqooyin fool xun in faraha ay la gasho maalin maalmaha ka mid ah yaa ninkan oo lagu magacaabo sidagelinba yaa waxa isla kulmeen haweeneydaniti jantarkala meel kalaaba iyo xilligaasaytii ku kulmeen waqtigay wada qaateen ninkanna marar kaliyuu usoo lalaabtay gabadhan waa uuba ka helay waxaa marka ay noqotay in ay teleefanada xitaa kala qaataan wada xiriiraan jacayl iyo xoogaa dhexdooda markaasitii ka dhashay ninkanna gabadhan marka xaaladeedu yuu wareystay waxaa noqotay inuu dhaho ii xaal waran oo kale xaaladaada ka waran waxay ku tiri una sheegtaba in arrintaniitii ay foosha xun in marka ay dani ku qasabto iyada qof xun aysan ahayn u tilmaamtay waxaana ay ku tiri qoyskayguba ma ogo xaaladaniitii aniga aan ku suganahay waa aan ka xumaay waxaaniitii aniga aan ku dhex jiro waalidkeyna maadaama ay qof wanaagsan ii malayaanna waxaan aniga aan ku dhex jiro haddii ay maqlaanna waxa ay noqon kartaa xaaladooda mid isbedel weyn uu ku yimaado ninkanna maadaama gabadhu uu jeclaaday waxa marka ay noqotay in uu dhaho waa aan ka xumahay maadaama adigoo qof wax bartay shaqo halkaniitii ka soo raadiyey arrimahaniitii aad noloshaadii in ay noqoto xaaladaadii sidaaniitii isku bedeshay waxa marka uu ku dhahay maxaa kugu qasbayo sidaaniitii u samaynaysa adoo gabar wax baratay iyo xitaa waxay ugu jawaabto ay ku tiri anigu ma jecleen waxyaabahaniitii in aan sameeyo asxaabtii yaa marka hore ii qurxiyey qaladaad yaa iga dhadhacay markii dambena waxa ay noqotay inaan ku rikaatooba shaqadaniitii jirkeyga inaan ka ganacsado in aan ku dhex jiro meel aan kaga baxana garan maayay tiri waxaa ninkaniitii markaa ugu jawaabay maadaama gabadha xoogaha uu rabitaan u hayay waxa uu dhahay okay aniga yaa garabku siinaayo waxa ii sheegtaa dadka arrimahaniitii
kugu qasbay hawlahaniti inaad ku jirtana kugu sii hayo waa imise qof 7 qof iyo markaa u sheegtay 3 haweeney ah iyo 4 rag ay u sheegtay ninkana magacyadii ku qortay iyo telefoon nambarada waxa uu ku dhahay okay waaya aniga aan ku caawinayo ka howlgalayo dadkana waa aan ku dhaafinayaabo oo noloshooda adduunyada markaa waan sabab yaan u noqonayaa inay geeriyoodaan haddii aan dilana waad xoroobi kartaa ayuu ku dhahay okay waaya tiri waa ay ku raacday waxa uu sameeyey uu ka bilaabay gabar dhanka haweenka iyuu ka soo bilaababa 3 haweeney ahaayed ee gabadhaniti ku rikaateynaya in hawshaniti ay ku jirto waa uu dilay midii koowaad yuu la xiriiray waa uu la macaamilay waa uu dilay markii ay isbarteen midii labaad meydkan waa uu qabanayaba waa uu jarjarayay isagoo meelo kala duwan oo gobolka ah dhigayo waxaana boolisku markaa ay noqotay qofkii 3aad marka uu dilayo in ay ogaadaan oo booliska waa la soo wargeliyey qof markii haweeneydii 3aad uu dilay xubneedii meel ka mid intuu dhigay booliskiya lala xiriiriyey waa ay jirtay dacwo booliska horay u taalay in haweeney horena markaasiti 2 haween oo la waayey ay jirtay oo waxaa markaa ay noqotay in boolisku markaa ay noqoto maadaama jirka la jarjaray aysan aqoonsan karin xalka ninkan ay ku heli karaan dilaaga ah waxa istuseen booliska in ay tahay nambarada ugu badnaay ee soo wacay haweenkaniti in la ogaado waxaa markaa booliska u soo baxay ninkaniti sidegalinba lagu magacaabo nambarkiisi inuu ahaa nambaradii ugu badnaa ee la macaamilay 3 qof ee la dilayba waa ay soo dabagaleen waa ay xireen booliska waxaana waraysi ay noqotay in la weydiiyo sababta uu u dilay 3 haween waxa uu ku dhahay waxa aan caawinayo in ay xorowdo gabadhaniti aniga jacaylka igala dhaxeeya ay jantarka layaan caawinayo dhahay ninkan maadaama 3 qof iyo 4 ragoo kale aan u arkay in ay caqabad ku yihiin gabadhaniti oo mustaqbalkeedii ay xumeeyeen haddana weli cadaadis ay ku sii saarayaan shaqadaniti inay ku sii sugnaato maadaama gabadhaniti aniga aan jeclahay waxa aan go'aansaday uu dhahay in aan markaasiti dilo 7daasiti qof 8aadna waaba uu jiraayu dhahay aniga aan sii go'aansaday in aan dilo waxay ku dhahayn booliska qofka 8aad yaa waaye gabadhan aniga aan jeclahayn inaan dilo yaa go'aansado dhahay sababta maxaa u dileedeen maadaama aadba marka hore aad sheegaysay inaad caawinaysay oo 7 qof oo arrimahaniti fooshi xun ku qalqaalinayo ku cadaadinaya aadba inaad dilaysa aad go'aansatay waxaa iyada 8 kaga dhigtay waxuu ku dhahay 3 qof markii aan dilay waxa aan dareemaba in aan dilaa ahay sidaas darteedna boolisku maadaama aan diiday in ay ogaadaan xogteeda ay helaan haweeneydanitina ay og tahay waxa aniga qorsheygu u ahaa in ayadana aan ku daro oon dilo boolisku waxaa markaa ay noqotay in sidoo kale ay soo qabtaan haweeneyda jirkeeda ka ganacsanaysay ee arrimahaniti sheegatay in ay 7daasiti ruux ku qasbeen waa ay xaal wareysteen in ay la og tahay ninkaniti waxa uu ku sameynayo dadkaasiti asxaabta la ahaa way u sheegtay wixii xogo iyada dhankeeda marka ay og tahay arrintan waxaa markaa ay noqotay arrin la yaab leh gabadhan waxaa arrimahanitiyo idil dhexgeliya waxa ay tahay dad asxaaba oo ay aamintay u mujaamaleeye oo magaalo kale ay ku noolaayeen dhahay halkaniti imow shaqo waad ka heli kartaa waan ku garab siinaynaa haddana waxyaabo foolxumo ah faraqa u geliyey qisadan waxaa markaa ayna tusaysaa oo aan ka baran karna waxa ay tahay in waalidiintu ay ku baraarugaan gabdhaha ay u dirsanayaan magaalooyinka kaloo kale asxaaboo kale waqti aan la soo qaadanayna ama aan la soo noolaalayna dhahayo kale in ay dhici karto mararka qaar gabdhahaasiti iyaga oo waalidku u malaya nolol wanaagsan in ay ku nool yihiin in ay dhici karto xaaladda gudaha ee gabdhahaasiti ay ku nool yihiin in ay tahay xaalad qarriban ama dhibaato in ay ku sugan yihiin ay jiri karto waxaana qisadan wacyi baraarujina ay noogu noqon kartaa in waalidiintu ay aad ugu baraarugaan ilmahooda xaaladaha ay ku sugan yihiin mar kale waad ku mahadsan tahay qisadan ilaa dhammaadka haddii aad nala soo gaartay muuqaalkan waxaan kaa codsanaya in aad sii sheer garayso sidoo kalena aad nagu dhiirigeliso like-ta si muuqaalka meel dheer u gaaro
haddii aad ka mid yihiin dadka janalka ku xir ilaa dhammaadkana lala soo gaartay waan rajeynayaa in muuqaale sidan oo kale qisooyin aad markaa wax ka faa'iidi karto maadaama janalka aan kusoo gudbinayno in muuqaalkan haddii halkan intii aad nala soo gaartaba si qisooyinka kalena aysan kuu dhaafin aan kugu baraarujinaya in muuqaalka aad sidoo kale dhankaaga ka faafiso janalkana aad kusoo birto waad ku mahadsan tahay mar kale waqtiga aad ku bixisay daawashada muuqaalkan muuqaalka xigaya noo balana